waan idin salaamo dhamaan saaxiibada ku xiran janaalkeena bidaaya aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog yar aan kaga hadli doono jilaaga caanka ee Arshaad Warsi xogtaas waxay ku saabsan tahay sidaan ka warqabno jilaayaasha hindi ugu caansan waxay sameeyaan doorar kala duwan haddii ahaan lahayn door hogaamineed haddii ahaan lahayn door caawin haddii ahaan lahayn door kaabalaadirnimo laakiin jilaagan caanka ah ee Arshaad Warsi hadda kor waxa uu sameeyay door uu asigu bajeclaysan sameyntiisa laakiin uu sameeyay jilaaga caanka ah ee Sanjid dartiis haddaba doorkaasi waa maxay door nuucee oo ahay filimkiisa uu ku jiro doorkaasi xog ku saabsan ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse intaan u gudagalay muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa inaad janaalka subscribe inoo saarto haddii muuqaalku cajib waliina sidoo kale like inoo saar wixii raayad qabto comment ka hoos inoogu dhab sii share gareeyo la wadaag asxaabtaada soo dhawaad saaxiibayaal haddii aan u gudagalay muuqaalkayga jilaaga lagu magacaabo saaxiibayaal Arshaad Warsi waa mid kamid ah aktaradiisa soo caan baxay horaantii sagaashameeyadii waana mid kamid ah jilaayaasha dhanka faniga aflaamta faniga sanadii ugu dambeeyay aad u sameeyay ama kaga soo muuqday aflaam caan ah ayaa lagu xasuustaa filimkan jilaagan aan dhahay kaas uu kamid yahay aflaam ay kamid yihiin Tere Mere Sabne sidoo kale filimkiisii loogu magac daray Soomaalidu magac dareen Hindustani aflaam badan ayuu jilaagan ka soo muuqday oo Hoogi Barkiji iyo aflaam aan soo tira koobi karin saaxiibayaal laakiin hadda ka hor waxa dhacday in door mid kamid ah doorarkii uu xumaayay in uu filimku sameeyo filimkaasi waa filimka caanka ah Munabai waxa hogaamiye ka ah jilaaga caanka ah Sanjid waxa uu yiri Arshaad Warsi in doorkaasi aan sameeyo ama doorkaas waxa weeyaan sida uu ku tilmaamay stupid role ama door nacasnimo ama isan qof actor weyn isan u qalmin inuu sameeyo laakiin Sanjid dartiis uu sameeyay maadaama saaxiib dhow aan ayuu yiri sidoo kale waxa uu hadalkiisa ku sii daraxtir directorka filimkaasi Raj Kumar Hirani waa ogaay ayuu yiri doorkaasi in uusan ahayn door aniga ii qalma sidaas taana waxaan ku tixgeliyay ama aan u sameeyay sida uu sheegay Arshaad Warsi Sanjid dartiis ayuu sheegay saaxiibayaal hadda kor wareysi laga qaaday ama wareysi yar oo uu baxshay Arshaad Warsi ayuu ku sheegay in doorkaas uu yahay mid kamid ah doorarkii ugu xumaa abi taariikhda uu sameeyay inta film uu soo sameeyay jilaagan inkastoo hadda kor mar ay dhacdaba in mar shaqo la'aan ay ku dhacday laakiin doorarkiisa inta ugu badan waxa loogu bartay in uu supporting actor uu sameeyo in aflaam uu hogaamiye ku noqdo waa aad ay u yaryihiin ama waa faraq ku tirs jilaagan lagu magacaabo Arshaad Warsi laakiin doorarkiisa waxay ahaayeen doorar aad loo amaano laakiin sidoo asiguba hadalkiisa ama hore uu sheegay doorkaasi oo filimkii Munabai ku soo midhigay inuu yahay ama taxanaha Munabai inuu yahay mid kamid ah doorarkii ugu xumaa uu sameeyo saaxiibayaal jilaagan lagu magacaabo Arshaad Warsi marka la eego nolosha caadiga ah ama nolosha dhabta labadan jilaa waa laba saaxiib oo aad iskugu dhow aflaam badan ay iskala soo muuqdeen marka laga soo tago taxanaha Munabai waxay iskala soo muuqdeen sidoo kale taxanaha caanka ah ee Daal Andhe Dhamaal qaybtiisa koowaad ee Dhamaal Total Dhamaal oo qaybtii labaad ahaa iyo Double Dhamaal oo Ajay Devgan iyo asxaab badan la iskugu keenay iyo aflaam badan ayay labadan jilaa iskala soo muuqdeen saaxiibayaal haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeynaa xogta yareed aan kala wadaagay jilaaga caanka ah ee Arshaad Warsi kaas oo ku saabsaneed doorkii uu ku sameeyay filimka caanka ah Munabai ama taxanaha Munabai kaas oo ku tilmaamay inuu yahay mid kamid ah doorarka lagu tilmaami karo stupid role-ka uu sameeyay abid ama doorkii ugu xumaa ee uu sameeyay jilaagan caanka ah ee Arshaad Warsi ama Hindustani fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar janaalka haddii aad ku cusubtahay subscribe inoo saar wixii raayad qabto comment ka hoos inoogu dhab sii share gareey oo la wadaag asxaabtaada waan ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena